kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena Facebook ee Belan Radio ku soo dhawaada wararka maanta aan idin heynana waxa kamid ah dagaal ka dhacay degmada Afgooye guddiga xalinta khilaafaadka oo xalaaleeyay kursigii uu ku soo baxay agaasimiye ku meel gaarka ah hay'adda NISA madaxweynaha maamulka galmudug oo wakiilada beesha caalamka kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in Muqdisho ay ka jirto amni xumi xoogan وحقاق waa 16 bisha 12 sanada 2021 waxa diyaar garoodaan wararkii oo dhameystiran marka waxa ku bilaabanaa dagaal ka dhacay degmada Afgooye iyo faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose wararkan ka helino ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay dagaal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow faahfaahintiisa rasmiga ah aan la helin warar dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaalka oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa al-shabaab oo xalay ka dhacay xaradii dhawaan lagu wareejiyay ciidanka NISA waxana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan oo dadka degmada Afgooye ku sugan ayaa soo sheegaya inay maqlayeen dhawqa rasaasta noocyadeeda kala duwan xarada oo ku taala agagaarka buundada weyn ee degmada Afgooye ayaa waxa degan ururka 31 guutada koobaad qaybta 12 Abriil waxana maalin ka hor booqasho ku tagay taliyaha guutada Xasan Jaamici guddiga xalinta khilaafaadkana waxa ay xalaaleeyeen kursiga agaasimaha hay'adda NISA guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa go'aan waxay ka gaareen kursigii uu ku soo baxay agaasimiye ku meel gaarka ah ee hay'adda NISA Yaasiin Cabdullaahi Fari qoraal uu soo saaray guddiga ayuu ku cadeeyay in doorashadii kursiga Hob Eber 67 uu ku dhacay si sharci ah kadib baaritaano dheeraad ah oo ay sameeyeen dacwad laga gudbiyay kursiga oo muran weyn uu ka taagnaa go'aanka guddiga ayaa dad badan u arkaya inuu luminayo kalsoonidii lagu qabi lahaa guddiga in uu yahay dhexdhexaad oo lagu kalsoonaan karo sidoo kalena xalin karaan murano kale oo la filayo in doorashada kuraasta qaar ay ka dhacaan maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay qareen in amni xumati ugu xumayd ay ka jirto magaalada caasimadda ah ee Muqdisho degmooyinkiisa qaar gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo fagaaro kula hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in manduuriyaha dhibaatooyin aad u weyn ku hayo dadka ku nool magaalada Muqdisho waxana uu sheegay in degmooyinka qaar ay amnigooda faraha ka sii baxayo balse maamulka gobolka Banaadir ay ku dadaalayaan sidii ay u xaqiijin lahaayeen amniga degmooyinkaas oo uu sheegay gudoomiyaha Umar Filish in ay khatar ku jiraan xaaladooda runtii bulshada deegaankan cabashadooda ayaa si isdaba jooga noo soo gaaraysa in muddo ahba annagoo ka jawaabayna marka cabashada bulshada ayaan maalin dhaweyd shir ku qabanay khamiistii dhaweyd ee xarunta degmada Kaaraan aan ku sheegayno inaan la dagaalamayno waxyaabaha noocaana oo amni darrada keenaya runtii degmadan Kaaraan iyo degmooyin kamid ah gobolka Banaadirba in muddo waxay la daaladhacayeen amni darro taasoo ay sababtay daroogada faraha badan leh oo laga keeno dalka dibadiisa iyo gudihiisa daroogadaas waxa ay isugu jirtaa kuwa halkan yaala oo ah khamri noocyo kala duwan oo ah kuwa dibadda laga keeno xashiish oo ah yacni maxaa la yiraahdo kuwa ka baxa dalka iyo kuwa la yiraahdo shiishada oo ayagana dibadda laga keeno sidoo kale waxa meesha ku jiray yacni calaq waxa la yiraahdo oo ah khamri macmal ah oo la sameeyo wadaan warkii aad ka daawanayseen barteena Facebook ee Belan Radio waa naga intaas daawada aad ku maasantahay daawashada muuqaalkan haddii uu ku soo gaaray oo aad nala joogtay ilaa dhamaadka fadlan si share gareys saaxiibadaada oo helaan macluumaadka maalin kasta halkan ku soo gudbina mahadsanid daawada